wuxuu ka shaqeynayay sidii uu khalkhal amni u abuuri lahaa. magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug wali xiisad dagaal ayaa ka taagan maamulka Puntland 48 saac ayuu u qabtay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug. dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo fara badan ay ku daabushay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug. waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay xiisadda oo markale dagaal u muuqata. dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo fara badan ayay waxay geysay xarada BSF meel u dhow halkaas ay ku sugayeen ciidamada maamulka Puntland diyaar garow adag ayay gashay tirada dadkii ku dhaawacmay dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo buux dhaafiyay isbitaalada magaalada Gaalkacyo iyo wararkii ugu dambeeyay xiisadda magaalada Gaalkacyo ayaan muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa. soo dhawaada saaxiibayaal, waa maalinimo Arbaca taariikhdu ay ku aasaysan tahay 8 aaraada waa 5 bisha 8 August sanada 2026. aynu ku bilowno magaalada Gaalkacyo. magaalada Gaalkacyo ee xarunta maamulka Galmudug waxaa ka taagan wali xiisad dagaal iyadoo maalinimadii markaas isla maanta uu dagaal oo adag uu ka bilowdo halkaas oo u dhaxeeyo ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa BSF. dagaalkaasi waxaa ku guuleystay ama ku gacan sareeyay ciidamada dowladda maamulka Puntland. waxay gacanta ku dhigeen xerada Istanbul ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo. muuqaaladan aad aragtaan waa hubkii markaas ciidamadii BSF oo ay bilaqaysteen ciidamada booliska maamulka Puntland iyo sidoo kale dadka shacabka ee markaas ku noolaa magaalada Gaalkacyo. wixii intaa ka dambeeyay dagaal kharaar oo markaas halkaas ka dhacay dhaawacyo fara badan ayaa jiro. dad shacab ah ayaa buux dhaafiyay isbitaalada magaalada Gaalkacyo. Puntland ciidamo fara badan ay markaas hub iyo saanad ciidan ay gacanta ku dhigtay, waxaana markaas la soo warinayaa in markaas xiisadu wali ay tahay mid kacsan. magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midugna xiisadeedu wali way taagan tahay. ciidamada maamulka Puntland 48 saac ay u qabteen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalooyinka ay Puntland ka taliso, iyadoo markaas ciidamada maamulka Puntland ay sheegeen in kooxaha ubaysan oo carqaladeynta amniga ka shaqeynaya lagu soo daabulay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug. waxay sheegeen xilligan wixii ka dambeeyay ayna u dulqaadan doonin, iyagoo sheegay in cadow kula dagaalamayaan buraha caalamiskaada ayna san u dulqaadan doonin in magaalooyinkaasi ay kula dagaalamaan ciidamo uu ka dambeeyo waa maleeshiyad uu ka dambeeyo Xasan Sheekh Maxamuud oo ay sheegeen in markaasi uu yahay madaxweynihii hore ee dalka. dhinaca kale waxaa la soo warinayaa in markaasi ama warar kala duwan ay ka soo baxayaan taliyihii ciidanka BSF ee markaasi Asad Diyaano oo ninka la dhashay oo la yiraahdo Maxamuud Diyaano oo isagu hogaaminayay ciidanka BSF ee ka soo goostay maamulka Puntland dhawaan. Maxamuud Diyaano oo markaasi ahaa taliyaha ciidanka BSF ayaa waxa uu sheegay inuu u goostay isaga iyo ilaalo u gaar ahayd markii uu dagaalku u bilowday ciidamada danab ee ku sugan dhanka Galmudug ee maamusho ee dowladda federaalka Soomaaliya. halkaas ayuu isku dhiibay ayaa leeyahay, waana taliyihii dhamaa ciidamadii uu talinayay oo markaasi la rabay inuu dagaalka ula gala ayuuna markaasi ka goostay ayay markaasi ay xogaa qaar tilmaamayaan, iyadoo warar soo baxay isagii in taliyaha gacanta lagu dhigay. hase ahaatee waxaan idin caddeynaya in taliyahaas uu ku biiray ciidanka markaasi danab ee markaasi ku sugan dhanka Galmudug ee maamusho. dagaalku uu qararaaday ciidamadii BSF-ta hubabkii ugu badnaa iyo markaasi saanad ciidan ayaana laga furtay. dadka shacabka ah ayaa la arkayay oo bileeqaysanayay sidoo kale ciidamada dowlad goboleedka Puntland Soomaaliya. Puntland war-saxaafadda ay soo saartay waxay sheegtay in la soo afjaray kooxaha ubaysan oo carqaladeyn ka waday magaalada Gaalkacyo. waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen xeradii BSF ee markaasi uu ahayd koox ay sheegeen markaasi inay ka shaqeynayaan amni darrada magaalada fadhi u ahayd, waxayna sheegeen in halkaas ay gacanta ku dhigeen. wixii intaa ka dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo fara badan ay geysay diyaarado markaasi dad shacab ah ururka markaasi ama markaasi diyaarado dad shacab raaci lahaayeen magaalada caasimadda ee Muqdisho. ciidamadii ugu fara badnaa ayaa looga qaaday, waxaana markaani ay ku wajahan yihiin magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug. waxaa la dareemayaa in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midug ay la soo baxeen hub iyo gaadiid dagaal oo ay markaasi dowladdu ay sameynayaan. waxay sheegeen in ciidamada maamulka Puntland ay ku soo duulaan ee dagaal adag ee markaasi la gali doonaan ay ka hortagi doonaan. sidoo kale waxay tilmaameen in markaasi xilligan wixii ka dambeeyay aan loo dul qaadan doonin waa qaska oo wada madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
xiisadu weli way taagan tahay dagaalkuna markasta ayuu ka qarxi karaa magaalada gaalkacyo ee gobolka Mudug sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa dagaalkan kama aysan hadlin wax warna kama ay soo saareen balse waxa la sheegay in xogaha qaar ee hoose ay soo baxay ay tilmaamayaan in dawladda federaalka Soomaaliya ciidamo fara badan ay u dirtay magaalada gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaana halkaas la tilmaamay in ay doonayso in gacanta lagu soo dhigo ciidamada maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni dhinaca kale maamulka Jubbaland war ayuu ka soo saaray dagaalkan war saxaafadeed goordhow ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa markaas lagu sheegay in markaas ay dawladda waxa lagu yiri dowlad goboleedka Jubbaland waxay si adag u cambaareynaysaa colaadda iyo xasilooni darrada uu madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday markaas dawladda federaalka Soomaaliya uu markaas ka horinayo deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa nasiib darro ah iyadoo ciidanka xoogga dalka ee dagaal ay kula jiraan kooxda argagixisada loo heli layahay hub iyo saanad ku filan oo ay ku difaacaan goobihii ugu dambeeyay argagixisadu ku dagaalameen ee gobolka Hiiraan haddana hub iyo agab ciidan lagu daabulayo deegaano nabdoon oo ay markaas ka jirto amni iyo kala dambeyn tallaabooyinka waxay khatar ku yihiin nabadda iyo xasiloonida iyo markaas wada noolaanshaha bulshada iyadoo markaas la weeqayo horumarka muuqda ee lala gaaray amniga iyo dib u heshiisiinta magaalada Gaalkacyo muddadii 10 sano ee la soo dhaafay ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan ka soo baxay maamulka Jubbaland dawladda Jubbaland waxay bogaadinaysaa baraaruga iyo midnimada ay muujiyeen dawladda iyo shacabka Puntland waxayna si wada jir ah uga hortagayaan qorshaha gurrucan ee lagu horinayo jiritaanka ama lagu burburinayo jiritaanka Puntland iyo amniga ay haystaan ayaa lagu yiri war saxaafadeedkan ka soo baxay maamulka Jubbaland oo ay markaas uga hadlayeen colaadii saaka ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxay markaas ay tilmaameen in madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ay ugu yeereen in markaas uu horinayo colaadda ka soconaysa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxayna sheegeen in xilligan wixii ka dambeeyaba aan loo dulqaadan doonin colaaddaasi iyagoo sheegeen ciidamada xoogga dalka ay markaas taagu leeyihiin dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab waxay soo hadal qaadeen in gobolka Hiiraan markaas looga baxay kooxdaasi iyagoo sheegay in markaas awood isaga difaacan ay waayeen ciidamada xoogga dalka balse waxa uu sheegay ama markaas maamulka Jubbaland ay sheegeen in xilligan wixii ka dambeeyay ay loo dulqaadan doonin colaadda iyo iskorkaanka maamulka Puntland oo ka wado ama markaas ay ilaalada dawladda federaalka Soomaaliya ka wado waqooyiga magaalada Gaalkacyo xaalka magaalada Gaalkacyo markastaba uu markaas sii adkaan karaa dawladda federaalka Soomaaliya ciidamo fara badan ayaa halkaas geystay ciidamadii danab ee ku sugnaa maamulka Galmudug ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayraada koonfurta magaaladaasina iyagu waxa la sheegay in gaadiidkooda iyo hubkooda ay la soo baxeen dhoolatish kala duwan oo halkaas uu ka soconayo odayaasha dhaqanka wali wax markaas warka ma soo saareen colaadan saaka ka bilaabatay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug haatan xiisadu waxay u muuqataa mid dagaal ciidamadii Puntland oo iyagu ku sugnaa ama markaas la wareegay xarada markaasi waa ay ku sugnaayeen ciidamada PSF ee markaasi waqooyiga magaalada Gaalkacyo waxa la sheegay in hubkii saanadii ay markaasi halkaas ku furteen in lagu bilaqaystay waa waqooyiga magaalada Gaalkacyo dhanka ee Puntland ay maamusho dhinaca kale dad shacab ah oo iyagu dhaawacyo kala duwan ay ku soo gaareen dagaalkan ayaa la geeyay isbitaalada waaweyn ee magaalada Gaalkacyo waxyaabaha ka soo kordhay xiisada Gaalkacyo iyo xigul waliba dagaalka halkaas ka dhici kara halkan oo Herka TV ayaa ka daawan doontaan muuqaalkan meel dheer gaarsiiya asxaabtana daawanaysa aad baad mahadsantiin